salaamu Allaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. kulanti wacan wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka ee aad hadahan oo kale ka daawataan Garaa TV. qodobada aad wararkeena ku daawan doontaan waxaa kamid ah dawladda federaalka Soomaaliya oo ku amartay inuu degdeg dalka ku soo galo safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Sacuudiga. dawladaha Soomaaliya iyo Koonfur Afrika oo ka wada hadlay dilalka Soomaalida loogu geysto dalka Koonfur Afrika. shir looga hadlaya sidii Soomaaliya looga nadiifin lahaa miinooyinka oo ka dhacay dalka Switzerland. wasiirka horumarinta maaliyadda Somaliland Dr. Saad Ali Shire oo sheegay inuu kordhay dhaqaalaha iyo dakhliga soo gala Somaliland. Sheekh Shariif iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ku kala tagay qorshe ay isbahaysi ku samaysan rabeen sababta ka dambeysay kala tagaasi ayaan idin haynaa. madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo isbedel ku sameeyay abaabulkii dagaal ee uu ka waday deegaanada dawlad goboleedka Jubbaland kadib heshiiskii hordhaca ahaa ee uu la gaaray dawladda dhexe. dawladda federaalka Soomaaliya oo lagu eedeeyay inay ku fashilantay wax ka qabashada amniga gudaha Soomaaliya. wasaaradda diinta iyo awqaafta Somaliland oo sheegtay inay imtixaan ka qaadayso wadaadada dadka daaweeya ee ku sugan deegaanada Somaliland. madaxa gabdhaha kubadda cagta Soomaaliya oo sheegtay in Qatar ay ku jirto nolosheeda isla markaasina ay uga carartay Qatartaasi gudaha dalka Soomaaliya iyo cidda ka dambeysay hanjabaado loo soo diray oo ay shaaca ka qaaday. akhbaaraadka caalamiga ah ee wararka Garaa TV ku daawan doontaan waxaa kamid ah ciidamada Myanmar oo duqeeyay xaafado ay deganaayeen muslimiinta qabiilka Rohingya ee dalka Myanmar iyo kusimaha xogayaha difaaca Mareykanka oo booqasho lama filaan ku tagay dalka Afghanistan. qodobada iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan wararka Garaa TV u diyaar garooba iyagoo dhameystiran. isku soo noqda bonda wadayaal mar kale waxaad ku soo dhawaataan wararka Garaa TV oo dhameystiran ku bilaabo sida hordhaca wararkeena aan idinku sheegayba. diblomaasiyiinta iyo u qaybsanayaasha ka hawlgala qunsuliyadda guud ee Soomaaliya ay ku leedahay magaalada Jidda ee dalka Sacuudiga ayaa isku diyaarinaya inay dalka dib ugu soo laabtaan kadib markii dawladda dhexe ay u yeertay inay dalka ay ku soo laabtaan. wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Soomaaliya ayaa diblomaasiyiinta u dirtay qoraalkaasi oo lagu wargelinayo inay muddo 30 maalmood gudahooda ay dalka dib ugu soo laabtaan gaar ahaan xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee magaalada Muqdisho. sababta rasmiga ah ee ka dambaysa u yeeridda mas'uuliyiinta qunsuliyadda ayaan la ogeyn, balse wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sidaan oo kale marar badan ugu yeertay safiiro iyo diblomaasiyiin Soomaaliya u qaabilsan qaar kamid ah safaaradaha ay Soomaaliya ku leedahay caalamka. dalka Itoobiya wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya mudane Axmed Ciise Caawad oo ku sugan magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya ayaa kulan gaar ah waxa uu la qaatay dhigiisa dalka Koonfur Afrika Sisulu oo ay ka wada hadleen xiriirka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Koonfur Afrika. kulankan ayaa waxa ay uga wada hadleen xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed iyo iskaashi dhinac walba leh oo labada dal ay wada yeeshaan. wararka aanu helayno ayaa waxa ay sheegayaan wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya mudane Axmed Ciise Caawad uu dhigiisa dalka Koonfur Afrika oo kala hadlay dhibaatooyinka dilalka iyo boobka ah ee lagu la kacayo ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Koonfur Afrika. dalka Koonfur Afrika ayaa waxa ku sugan Soomaali fara badan kuwaas oo ganacsi ahaan u jooga dalkaasi ha yeeshee inta badan waxa loo geystaa falal isugu jira dil, dhaawac iyo boob hantidooda lagu la kaco iyada oo dawladda Koonfur Afrika aanay arrinkaasi waxba ka qaban. wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Dr. Axmed Ciise Caawad ayaa waxa uu sheegay inay ka doonayaan dawladda Koonfur Afrika inay wax ka qabato dhibaatooyinka lagu la kacayo Soomaalida ku ganacsata dalka Koonfurta Afrika isla markaasina loo baahan yahay in dawladdu ay ka hortagto boobka dhaca iyo markaasi dilalka qorsheysan ee loo geysanayo Soomaalida dalkaasi ku ganacsata. waxa uu sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya ay dawladda Koonfur Afrika kula xisaabtamayso dhib kasta oo loo geysto muwaadiniinta Soomaaliyeed ee dalka ku nool. Switzerland 22kii bishii hore ayaa shir wada tashi ah oo ay soo qaban qaabisay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan miinooyinka waxa lagu marti qaaday wasaaradda amniga gudaha Soomaaliya iyo hay'adda la yiraahdo SIMA oo u qaabilsan wasaaradda arrimaha gudaha miinooyinka iyo qatarta ka dhasha miinooyinka sidii looga hortagi lahaa. shirka oo ka dhacay
magaalada Geneva ee dalka Switzerland ayaa wafdiga dawladda federaalka uga qayb galay waxaa hogaaminayay wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga gudaha xildhibaan Cabdinaasir Siciid Muuse waxaa kale oo shirka ku wehelinayay ambassador Faadumo Insaaniya oo iyadu kaalin muhiim ah ka qaadatay shirkaasi una gudbisay hay'adaha ka shaqeeya arrimaha miinabaarka ee jooga UN-ka inay si dhow ula socon doonto hawlaha miinabaarista ee Soomaaliya shirkaasi oo ahaa mid laba wajilaya wajiga hore waxaa ka hadlay wasiir ku-xigeenka amniga gudaha wuxuuna sheegay in ay jiraan qorshe hawleed lagu xoojinayo caawinaadda dadka ku waxyeelooba qaraxyada miinooyinka iyo qataraha ka dhasha dadkaasi oo u badan dumar iyo carruur dawladda federaalka Soomaaliya iyo hay'adda u qaabilsan miinabaarista qaramada midoobay ee markaasi la yiraahdo UNMAS ayaa isla gartay inay ka go'an tahay dhamaystirka iyo ka nadiifinta miinooyinka dhammaan dhulka Soomaaliya wajiga labaad ee shirka ayaa diiradda lagu saaray arrimaha bini'aadanimada iyo sidii ahmiyad gaar ah loo siin lahaa nolosha dadka ku waxyeelooba dhibaatooyinka miinooyinka iyo deegaanadooda oo ay ka qayb yihiin dhalinyarada iyo haweenka agaasimaha hay'adda Siima Xooshow iyo Sahra Cabdi oo ku hadlaysay magaca dhalinyarada ayaa warbixin muhiim ah ka soo jeediyay shirka qaybtiisa labaad waxayna sheegeen in muhiimadda ay tahay in si dhow loola socdo goobaha qaraxyada miinooyinka lagu tuhunsan yahay si aysan saameyn uga soo gaarin dadka rayidka shirkaasi kadib wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga gudaha Soomaaliya Cabdinaasir Siciid Muuse ayaa booqday safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee magaalada Geneva ee dalka Switzerland halkaasi oo si diiran ay ugu soo dhaweysay safiirad Faadumo Insaaniya sidoo kale wasiir ku-xigeenka wuxuu la kulmay qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Switzerland asagoo oo kula dardaarmay muhiimadda midnimada iyo wadajirka ay u leedahay inay ka qayb qaataan dib u dhiska dalkooda Soomaaliya deegaanada Somaliland wasiirka horumarinta maaliyadda Somaliland Dr. Saad Ali Shire ayaa waxa uu ka hadlay horumarka dhaqaale ay ku talaabsadeen deegaanada Somaliland wasiir Saad Ali Shire ayaa waxa uu sheegay inay ku dadaalayaan sidii sare loogu sii qaadi lahaa kobaca dhaqaalaha ayna kaga mahad celinayaan ganacsatada sida ay kaga qayb qaateen kobaca dhaqaale ee deegaanada Somaliland waxay hoosta ka xariiqday inay aad u kordheen dhalinyarada wax bartay haddana waayay fursado ay ku shaqaystaan sida awgeedna ay u baahan yihiin in la shaqaalaysiyo Somaliland waxay sheegtay inay ka gooday Soomaaliya sanadkii 1991 tan iyo wixii xilligaasi ka dambeeyay oo haatan 28 sano laga joogo ma aysan helin wax aqoonsi caalami ah balse deegaanada Somaliland waxaa lagu amaani karaa dimuqraadiyadda ay gaareen iyo nabadgelyada iyo maamul wanaaga ay markaasi uga horeeyaan Soomaaliya inteeda kale iminkana wararka uu helayo Garaa TV waxay sheegayaan inuu fashil ku dhamaaday qorshe ay doonayeen inay xisbi midow ah ay ku samaystaan madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo siyaasiga rugcadaaga ah ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame maalmihii ugu dambeeyay magaalooyinka Nairobi iyo Muqdisho waxa ka socday kulamo looga arinsanayo midowga xisbiyada himilo iyo wadajir oo ay kala hogaaminayaan Sheekh Shariif iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame eekis madaxweyne Sheekh Shariif ayaa ila wareediyo u dhow waxay sheegeen in durba uu markaasi si bilaabay ololaha uu ku doonayo in doorashada soo socota uu guul kaga soo hooyo balse waxa uu wada qorshe uu xulufo ku samaysanayo xisbiyada ay kala hogaaminayaan labadan mas'uul ayaa shuruudo badan isku fahmi waayay waxa ayna ku heshiiyeen in wada shaqayn guud ay yeeshaan maadaama ay ku guul daraysteen inay midoobaan Sheekh Shariif ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay si hoose markaasi saameyn ugu lahaa siyaasadda Soomaaliya isagoo xulufaysi iyo abaabul xoogan waday maadaama ay gabagaba marayso diiwaangelinta xisbiyada u tartamaya doorashada soo socota waxaa lagu wadaa xisbiyo badan in lagu dhawaaqo toddobaadiyada soo aadan si ay uga mid noqdaan asxaabta siyaasadeed ee Soomaaliya markaasi ka jira gudaheeda ee ka qayb galaya doorashada 2021 ka dhacay gudaha Soomaaliya oo la filayo inay u dhacdo qaab qof iyo codkiisa xisbiyo badan ayaa doonaya in doorashadaasi ay saameyn ku yeeshaan waxaana iminka xisbiyada qaar ay bilaabeen inay durbo isku biiraan xisbiyada midoobay waxa kamid ah
xisbigii daljir ee uu hogaaminayay xildhibaan axmed macalin fiqi iyo xisbigii hore ee damul jadiid ee uu hogaaminayay madaxweynihii hore ee Soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo iminka midoobay lana baxay xisbiga midowga nabadda iyo horumarka ee magaciisa loo soo gaabiyo UPD kuwaas oo iminka dawladda federaalka Soomaaliya cadaadis xoogan ay kala kulmayso si taas la mid ah ayay Sheekh Shariif iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur doonayeen inay samaystaan hal xisbi oo ay ku midaysan yihiin balse way isku fahmi waayeen iminkana waxay isku afgarteen inay si hoose u wada shaqeeyaan dawladda federaalka dhankeeda waxaa laga sugayaa in mas'uuliyiinta ugu sarreysa ay soo dhisaan xisbiyo siyaasadeed oo ay iyagu hogaaminayaan si ay uga qayb galaan doorashada soo socota ee Soomaaliya ka dhacaysa ee la rajeynayo inay qof iyo codka noqoto wali wararka Gara TV ayaa daawanaysaane iminkana Shaymo Maxamed oo ah madaxa ciyaartoyda haweenka ah ee kubadda cagta Soomaaliya ayaa waxa ay markaasi sheegtay in Qatar ay ku jirto nolosheeda isla markaana ay ka carartay gudaha Soomaaliya kadib markii loo hanjabay hadalkaasi ayay ku sheegtay waraysi ay siisay shabakada wararka ee la yiraahdo tuko.com ee laga leeyahay dalka Kenya waxayna xustay in hanjabaadaasi ay ka dambeysay kadib markii ay xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA ay u gudbisay cabasho ka dhana xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya waxay sheegtay in hanjabaad loo soo diray ay ku qasabtay inay ka soo cararto magaalada Muqdisho waa sida ay hadalka u dhigtay madaxa haweenka ciyaartoyda ah ee ciyaara kubadda cagta ee Soomaaliya Shaymo Maxamed waxa ay bishii hore u gudbisay FIFA in baaritaan lagu sameeyo dhaqaalo loogu talagalay gabdhaha kubadda cagta ah oo ay FIFA u soo direen xiriirka kubadda cagta Soomaaliya waa sida ay hadalka u dhigtay waxay FIFA ugu baaqday in talaabo laga qaado saraakiisha ku lugta leh lacagahaasi la isdaba mariyay ee ay FIFA u soo dirtay in lagu hormariyo mashaariicda gabdhaha Soomaaliyeed ee ciyaara kubadda cagta sidoo kale waxa ay sheegtay in xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ay wadaan qorshe ay iyada kaga qaadi rabaan xilkaasi iyadoo aan dhamaysan xilli hawleedkeedii sharcigu u ogolaa oo dhan muddo 6 sano dhinaca kale xiriir kasta oo heer qaran ah waxa loo ogolaaday lacag ka timaada xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA oo loogu talagalay haweenka kubadda cagta ee dal kasta taasi oo dhan $100,000 ilaa $500,000 oo ah qarashka hawlgallada ee ay adeegsadaan haweenka kubadda cagta ciyaara ee dunida ku nool waxa kaloo lacagahaasi u sii dheer qarash loogu talagalay safarada ay haweenka kubadda cagta kaga qayb galayaan tartamada caalamiga ah iyo mashaariicda qaaska u ah adeegyada sportska ee haweenka kubadda cagta ciyaara saraakiisha FIFA oo markii horeysay la hadlay wargeyska la yiraahdo The Guardian ee ka soo baxa dalka Ingiriiska qaasatan London waxay u sheegeen inay heleen cabashadaasi isla markaana ay gudi u saari doonaan si ay madaxda xiriirka kubadda cagta Soomaaliya kaga hadlaan arrintaasi marka ay ku wada kulmaan magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya ma aha markii ugu horeysay ee madaxa gabdhaha kubadda cagta ee Soomaaliya Shaymo Maxamed cabashadaasi ay la wadaagto warbaahinta waxayna horay waraysi ay u bixisay ay ku sheegtay in xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed ay maasuqeen lacago ay FIFA ugu tala gashay gabdhaha kubadda cagta ciyaara ee ku sugan Soomaaliya deegaanada dawlad goboleedka Jubbaland madaxweynaha maamulka Jubbaland ayaa bishii la soo dhaafay sameeyay abaabulkii ugu badnaa ee ciidamada ammaanka ee Jubbaland wuxuuna kormeeray xarumo ciidan oo aad u fara badan tan iyo markii uu sameeyay abaabulkii ugu badnaa iyo diyaar gareynta ciidamada Jubbaland ma jirin wax weerar ah oo ciidamada ammaanku ay u geysteen xarumaha ay al-shabaab kaga sugan yihiin deegaanada Jubbaland taa bedelkeeda al-shabaab ayaa 2 jeer weeraray deegaanka Baarsanguuni halkaasi oo fariisin u ah ciidamada ammaanka ee maamulka Jubbaland waxaana la isweydiinayaa halka uu ku dambeeyay abaabulkii Axmed Madoobe ee ku aadanaa dagaalka ka dhanka al-shabaab saraakiisha ciidamada maamulka Jubbaland oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in weli aysan helin amarka ay ku qaadayaan weerarka ka dhanka al-shabaab isla markaana laga sugayo amarka madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe warar kale oo aan helayna ayaa sheegaya in ay dhanka ciidamada AMISOM ay caqabad ka taagan tahay maadaama iyagana ay doonayaan inay amarka hawlgalka ay ka helaan madaxda ay ka amar qaataan taasina ay rajabeel ku noqotay qorshihii Axmed Madoobe ee ku aadanaa hawlgalka ka dhanka al-shabaab Axmed Madoobe ayaa marar badan sheegay in dhanka dawladda federaalka aysan weli ka helin kaalintii ay doonayeen waxaana taasi uu sheegay inay caqabad ku tahay hawlgallada ay kula dagaalamayaan al-shabaab
waxaa hadda yaraaday heegankii ay ku jireen ciidamada ammaanka Jubbaland waxaana wararka qaar ay sheegayaan in ciidamadii la geeyay Afmadow iyo goobo kale ay dib ugu laabteen magaalada Kismaayo ee caasimadda ku meel gaarka ah ee dowlad goboleedka Jubbaland waxaa sidoo kale arrinka loo sameeyaa maadaama iminka ay isku soo dhawaan rabaan dawladda federaalka iyo dowlad goboleedka Jubbaland in markaas loo qorsheynayo howlgal guud oo ay ku wada dhan yihiin AMISOM dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland kaasi oo ay deegaanada al-shabaab ka joogaan Jubbaland looga saari doono Jubbaland ayaa deegaanadeeda inta badan waxaa gacanta ku haya ururka al-shabaab waxaana gobolka Jubbada Dhexe oo ay ku taalo caasimadda Jubbaland ee Bu'aale gacan ku hayntiisa iminka markaasi haya ururka al-shabaab madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa dhowr jeer wacad ku maray in al-shabaab ay halka ka saari doonaan oo ciidamada Jubbaland ay ka howlgali doonaan deegaanada Somaliland wasaaradda diinta iyo awqaafta Somaliland ayaa bilaabaysa howlgal imtixaan lagaga qaadayo dhammaan cilaajyada markaasi ka howlgala deegaanada Somaliland ee culimaadudiinku ay madaxda ka yihiin waa goobaha dadka lagu daaweeyo ee diiniga ee ku yaala Somaliland iyadoo wajiga koobaad laga bilaabayo caasimadda Somaliland ee Hargeysa imtixaanka laga qaadayo culimada ka howlgala cilaajyada ee ka shaqeysta ayay ujeedadiisu tahay si loo hubiyo goobaha aqoon diineed ahaan iyo taya ahaanba inay ku haboon yihiin in dadka lagu dabiibo iyo kuwa markaasi aan u qalmin oo ay Somaliland albaabada isugu dhufan doonto imtixaanka kadib mas'uuliyiinta wasaaradda oo dhawaanahanba ku mashquulsanaa dardargelinta howlaha shaqo ee wasaaradda iyo horumarinta adeegyada diineed ee ay Somaliland u hayaan ayaa dhawaan bilaabaysa imtixaan laga qaadayo wadaadada ka howlgala goobaha dabiibka diiniga ah ee cilaajyada ee ku yaala Somaliland kuwaasi oo la hubin doono aqoontooda diimeed si loo helo cilaajyo la sugay tayadooda aqooneed wasaaradda diintu imtixaanka kadib waxay wadajir uga wada shaqayn doonaan wasaaradda horumarinta caafimaadka tayada goobaha cilaajyada ah adeegyadooda dabiibka diiniga ah ee markaasi ku aadan adeegyada caafimaadka maadaama nolosha dadka caafimaadka doonaya aan lagu aamini karin goobo aysan dadka joogaahi khibrad lahayn agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo awqaafta Somaliland Sheikh Aadan Cabdilaahi Cabdallah ayaa sheegay in ujeedada arrintan imtixaanka loo sameynayo iyo talaabada xigi doontaaba ay tahay in sare loo qaado tayada goobaha daweynta diiniga ah ee deegaanada Somaliland dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu eedeeyay inay ku fashilantay wax ka qabashada ammaanka dalka qabiir dhanka amniga ah ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ee uu hogaaminayo madaxweyne Farmaajo ay ku fashilantay wax ka qabashada amniga labadii sano ee la soo dhaafay ee ay talada dalka haysay Cornel Sharif Hussein Cornel Robow oo ah xogayaha guud ee xisbiga cadaaladda iyo badbaadada oo warbaahinta la hadlay wuxuu sheegay in haddana aan dowladda laga sugaynin in ammaanka ay wax ka bedasho hadalkiisa ayaa ku soo aadaya sanad guuradii labaad ee ka soo wareegtay markii madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo loo doortay madaxweynaha Soomaaliya 8 February 2017 iyadoo dhawaan loo dabaaldegay muddadii ay jirtay dowladdan ayuu sheegay inay ku mashquulshay waxyaabo aan dan ugu jirin shacabka sidaas daraadeedna ay dayacday ammaanka sababta aan hadda looga sugaynin inay amniga ay wax ka qabato ayuu sheegay in ay gali doonto oo la doorasho isla markaana labadii sano ee ay wax qaban lahayd la soo dhaafay inta waxdana ay ku dhamaysan doonto sidii markaasi doorashada soo socota ay u soo laaban lahayd wararka Soomaalida ka baxsan ciidamada militariga ee dalka Myanmar ayaa bilaabay inay duqeeyaan xaafado isla markaana dadka rayidka ay ka hor istaagaan inay helaan raashin iyo kaalmooyinka hay'adaha iyadoo ay sii xoogaysanayaan kooxaha muslimiinta ee Arakan ee la dagaalamaya dawladda dalkaasi Myanmar dagaaladan oo ka dhacay gobolka Rohingya ee dalkaasi gaar ahaan waqooyiga galbeed waxa ay sababeen in ciidamada Myanmar ay barakiciyaan kumanaan ruux oo muslimiinta dalkaasi ku noolaa sida ay ku warantay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqul aadanaha warbixin ay soo saareen maanta ayaa lagu sheegay in ciidamada ammaanka ee dalka Myanmar ay adeegsadeen sharci mugdi ku jiro oo lagu haynayo dadka rayidka ah ee lagu tuhmay inay gacan ka geysanayaan dagaalada kooxaha Arakan ee la dagaalamaya dawladda dalkaasi dagaalada u dhaxeeya dhinacyada dalka Myanmar ayaa soo xoogaystay bishii Janaayo kadib markii kooxaha Arakan ay weerareen xarun booliis oo ku taala dalkaasi isla markaana ay dileen 13 sargaal
Tirana Xasan maamulaha hay'adaasi ayaa sheegtay in ciidamada ay duqeynayaan xaafado la degan yahay isla markaana ay qaadanayaan sahayda raashinka taasina ay tahay meel ka dhac iyo wax aan la qaadan karin ugu dambeyntiina Patrick oo ah kusimaha xogayaha arrimaha difaaca Mareykanka ayaa booqasho aan horay loo shaacin ku taagay dalka Afghanistan Patrick ayaa la kulmi doona madaxweynaha dalka Afghanistan Ashraf Ghani isagoo la filayo inuu kala hadlo wadahadallada u dhaxeeya ururka Taliban iyo dawladda Mareykanka bishii la soo dhaafay waxaa toos u bilowday wadahadallo u dhaxeeya ururka Taliban iyo dawladda Mareykanka kuwaasi oo ay dawladda Mareykanka ku tilmaantay in guul laga gaaray kusimaha xogayaha difaaca ee Mareykanka ayaa sheegay in muhiim ay tahay in wadahadallo toos ah ay dhex maraan dawladda Afghanistan iyo ururka Taliban colaadda Afghanistan ayaa gashay sanadkii 18aad dawladda Mareykanka haatan waxaa dalka Afghanistan ka jooga ilaa 14,000 oo askari kuwaasi oo lagu wado in bartamaha sanadkan dalkaasi laga saaro sida uu ku dhawaaqay kol horeba madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa inta ku dhandaawadayaal wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka ka daawanaysan Gra TV hadda doonaysa wararkeenu daqiiqad walba soo gaaraan xasuusna inaad subscribe dhahdo channelkan sina share garayso wararka Gra TV mahadsanidin